Assalaamu calaykum dhammaan daawadayaasha ku xiran janalka Maadis Media kulan kale qurux badan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka aan maanta idiin hayno waxa uu ku saabsan yahay gabadha lagu magacaabo Habboon oo ka baxday barta TikTok ayaa dhawaanahan waxa laga waayay social media iyadoo taageero fara badan ay ayada leedahay isweydiinayaan halka ay ku maqan tahay iyo weliba sababta ay ugu maqan tahay social media, iyadoo dadka qaar ay sheegayaan inay aroostay iyo dad kale oo sheegaya in sababo kale ay ku maqan tahay, balse xaqiiqda saxda aan soo ogaanay ayaa muuqaalkan idinkugu faahfaahin doonaa. Inta aanan guda galin muuqaalka, fadlan waxaan si qalbi furan idinkaga codsanaynaa inaad subscribe saartaan channelka si aysan kuu dhaafin muuqaalada aan soo gelino. Hagaag aan guda galno barnaamijka. Habboon oo ah gabar dhalinyaro ah isla markaasna ku caanbaxday barta TikTok ayaa muddo ku dhow 2 bil ay ka maqan tahay social media. Xan fara badan oo social media wareega waxaa la isdhaafsanayay sababta ay ugu maqan tahay social media, balse xaqiiqda aan soo ogaanay ayaan rabnaa inaan idinla wadaagno. Habboon oo ah gabar dhalinyaro ah ayaa sababta ay ugu maqan tahay social media ay tahay sababo jira awgood, sababtaasi oo ah inay ku maqan tahay waxbarasho. Habboon oo ah gabar dhalinyaro ah ayaa waxa ay dhigataa college ku yaala Mareykanka, isla markaasna ay wax ka barato, halkaasina ay maalmahani ay ku mashquulsan tahay. Si aan idinkuga cadeyno xaqiiqda warkani, waxaan rabnaa in cadeemo aan idin tusno taasi oo cadeynaysa in Habboon ay ku maqan tahay waxbarasho si taageerayaasheeda ay ugu qancaan. Muuqaalkan aad arkaysaan waxa ay soo dhigtay dhawaan bishii hore iyadoo challenge ahaan u soo sameysay muuqaalkan ay TikTok ka soo dhigtay. Kasoo muuqaalka codka ma furi karno, waa hees inkastoo bisha Ramadaan lagu jiro. Heestani ayaa ah hees uu soo qaaday Kule Simba oo la oran jiray Soomaali Miya. Gabadhani ayaa muuqaalkan taageero fara badan ay TikTok ku lahayd ku soo dhaweeyay soo noqoshadeeda. Kadib mid ka mid ah taageeraheeda ayaa weydiiyay sababta ay u maqneed uuna ugu faraxsan yahay inay soo noqoto, balse reply-ga ama qaybta jawaabta ayaa ugu sheegtay inay ku maqneed sababo waxbarasho, balse hadda ay soo noqotay. Balse muuqaalkaasi ayaa ugu dambeeyay muuqaalo ay soo gasho iyadoo muuqaalo 2 ah camal ee maalinkaasi tuubtay ay soo dhigtay TikTok kadibna haddana la waayay. Taasi waxay cadeynaysaa in Habboon ay ku maqan tahay waxbarasho, sababahaasina ay ugu weyn tahay sababaha ay kaga maqan tahay social media. Inkastoo dadka badanaa social media isticmaala ay u badan yihiin arday, qaarkoodna ay yihiin dad shaqaale ah ama shaqeeya, balse inta dadka badan ardayda ah ayaa caqabado kala kulma social media kadib markii ay isku keeni waayaan social media iyo waxbarashada. Muuqaalkan koobnaa maanta intaas ayuu ahaa, balse waxaan xasuusinaynaa dhammaan dadka ku xiran Maadis Media in bisha Ramadaan inta ku jirto aan idiin soo gudbin doono barnaamijkan maxay ku maqan yihiin oo ah barnaamij taxane ah oo maalin walba idinkugu soo gudbin doono dadka social media muddo ka maqan, anagoo xogahooda fara badan soo raadinayno aan idiin soo sheegi doono sababaha ay ku maqan yihiin iyo waxyaabaha sababay. Waxaan si qalbi leh idinkaga codsanaynaa subscribe saar channelka si aysan kugu soo dhaafin muuqaalada aan soo gelino aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. Next video ayaa inoo balan. Bye bye, Ramadan Kareem.